dowladda waddanka Maraykanka ayaa beenisay eedayn uga timi xukuumadda Iiraan eedayntaasoo ahayd inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay dalkaasi Iiraan danjiraha dowladda Maraykanka u fadhiya qaramada midoobay haweeneyda lagu magacaabo kale ayaa sheegtay in madaxweynaha waddankaasi Iiraan ay tahay inuu muraayad isku eego ka hor inta uusan Maraykanka eedaynin waxa intaasi ku dartay in madaxweyne ruuxaani uu muddo dheer cadaadis ku hayay dadkiisa danjiraha dowladda Maraykanka u fadhiya qaramada midoobay haweeneyda lagu magacaabo kale oo ka hadlaysay eedaynta Iiraan u jeedisay ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa The United States condemns any terrorist attack anywhere. Period. We've always stood by that. I think what Rouhani needs to do is he needs to look at his own home. dowladda Maraykanku waxa ay cambaaraynaysaa weerar walba oo argagixiso meeshuu doonaba ha ka dhacee balse waa in dowladda Iiraan ay hoos iyadu isu eegto dadka reer Iiraan maalin walba waa ay dibad baxaan isla markaana cadaadis ayaa lagu hayay muddo dheer hadalka waddanka Iiraan ayaa dalalka dowladda Iiraan ay ku eedeysay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Axfaas ee waddanka inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday ciidan gaado ka ciyaar sameynayay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Imaaraadka Carabta Anwar Gargaash ayaa dhankiisa eedaynta Iiraan ku tilmaamay mid aan sal iyo raad lahayn weerarka ka dhacay Axfaas ayaa waxa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka IS iyo ururka kale Axfaas National Resistance ururkaasoo ah urur maxalli ah oo dalka Iiraan ka jira weerarkii ka dhacay magaalada Axfaas ayaa waxa ku dhintay 25 qof oo isugu jira askar iyo dad rayid ah markab samata bixinta ka shaqaynayay oo ka hawlgelayay badda Mediterranean-ka ayaa diiwaangelintii lagala laabtay arrintaasoo carqaladaynaysa hawlihii samata bixinta ee mustaqbalka uu fulin lahaa marka uu markabkaasi xirto waa inuu dhigaa taariikhdiisa ama diiwaangelintiisa dalka Panama mana safri karo isagoo aan mid cusub la siinin waa markabkii ugu dambeeyay ee gaar loo leeyahay ee ka hawlgelayay aagga Liibiya looga tallaabo Yurub hay-addii maamuleysay markabka ayaa dowladda Talyaaniga ku eedeysay in ay cadaadis saartay Panama si ay diiwaangelinta ugala laabato labadan kooxood oo heshiis kula jiray hay'adaha Medicine Sans Frontiers iyo SOS Mediterranean ayaa sheegay in go'aanka diiwaanka lagala noqonayo ay ka heleen wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Panama xukuumadda ayaa sheegtay inay markabka ku tilmaamtay mashaakil siyaasadeed oo dalka haysta waxaana ay sheegtay in dowladda Talyaanigu ay ka dalbatay inay qaado tallaabo degdeg ah oo markabka ka dhan ah sida ay sheegtay hay'adda SOS Mediterranean wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi Talyaaniga Matteo Salvini oo horay markabka ugu tilmaamay taxi kaasoo ay muhaajiriintu isticmaalaan ayaa diiday in dalkiisu uu cadaadis saaray waddankaasi Panama hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee markaa magaceeda la soo gaabiyo lagu magacaabo WFP ayaa ka digtay dhibaatada cunno yarida ee ka taagan dalkaasi Yamen inay sii xumaan doonto waa haddii bay tidhi dekedda Xudayda ay burburto ama la burburiyo hay-adda qaramada midoobay ayaa soo saartay kala badh ka mid ah dhammaan gargaarka ay u fidiso Yamen iyadoo oo marinaysa dekeddaasi waxaana ay sheegtay in iyadoo ay jiraan waxyaabo kale oo isla markaana loo baahan yahay ay noqotay mid aad u adag agaasimihii hore ee hay'addaasi ee dalka Yamen WFP ninka lagu magacaabo Stephen Anderson ayaa waxa uu yidhi waxaanu ku faraxsannahay in aanu ilaalino kaabayaasha muhiimka ah sida dekedda bakhaarada iyo kaydka dagaalyahanada xuutiyiintu waxa ay qabsadeen magaalada Xudayda iyo weliba dekedda magaaladaasi tan iyo bishii Oktoobar ee 2014 laakiin dowladda Yamen iyo ciidamada isbahaysiga ee uu hogaaminayay Sacuudigu ayaa weerar ku qaaday isla markaana dib u qabsaday sanadkan Siciid Axmed Tamreyse wararka telefishanka caalamiga ah ee Star